السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستاذكي أفكا صومالي شاشة dadka uga soo gudbin jiray si uga faa'iideystaan maanta 10 keenu wuxuu noqonayaa xuruuftii aynu ku soo jirnay ee shibanaha iyo shaqalka la isku daraayay dabadeedna xarafka gadaal higaada laga raacinayay xarafka shibanaha ah si uu macno inuu ku sameeyo waxaynu marka joognay xarafka beeshalay inoo joogtay jaada xarafka ku xiga ayaynu maanta qaadanaynaa oo ah ح بينو قادنين شغل دير يا شغل قابن يدو بينو قادنين شغل كي ديرا بينو قليني shaqalkii dheera ayaanu sida u gelinay markaynu shaqalka dheer gelino xaada wuxuu noqonayaa inaynu marka xaraf raacino noqonaysa xaabinu aha hadii xaraf lagu daro waa inuu macno inoo sameeyaa xaal la baynu raacino laadi maxay macno ku kordhisay maadaama waxa ahayo awal aanu macna sameeyeen maxay inoo kordhisay oo faa'iido inoo keentay waxa weeye ku darideeda inuu gadaal kaga darnay xaada laada waxa inoo keentay xaal ba dhawaaqay noqday ereyga xaal waa sife way weeraha la isticmaalayo naxwaheenu ku baran doonaa wuxuu kala baxayaan noocyo badan oo ilaa sagaalka qaybood ayay qayb kamida ayuu hoos imanayaa ereyga kan xaal marka waa sife waana qorshe marka waxaanu hadana qaadanaynaa xarafka xaada oo la socoto shaqal dheera oo aynu ku darno xaraf kale si uu inoo ku sameeyo macna buuxa waxaanu ku darnay la sidii kii horeba aynu ugu darnay la wuxuu noqday dhawaaqii xeel iyana waa sife sifahaas oo ah siyaasad waxaanu hadana qaadanaynaa xarafka xaada oo wadata baynu waxaan ku darnay da xiib waha da baa lagu daray dhawaaqeedu muxuu noqday xiidow maxaa tahay hadaba oo macna ah xiid waa magac weeye magacaas yaa iska leh xayawaan baalida kamida xayawaan baalida kamida xayawaankaas oo ah baalida shimbir maxaynu niri marka xiid waa magac xayawaan baalida kamida oo ah shimbir baalay waa inta duusha oo baalasha leh oo ku socota hawada dhexmarta dhulka iyo cirka iyo dhirta dusheedaba iyo buruleedaba ku noolaan karta meel kasta maraysa badaha qaybtooda isaga gudbaan qaarad bay isaga gudbaan marka waxaanu kala soo qaadanaynaa iyadoo oo inoo raacday
maxaynu ku darnaa da aan ku darno da markii lagu daray maxay inoo samaysmay markii da lagu daray maxay inoo samaysmay dhawaaqa soo baxay muxuu yahay xoobay ahayd xoo maxaa marka da lagu daro raacaya macnaha sameeyay muxuu noqday dhawaaqu muxuu noqday dhawaaqeedu waa xood 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 waa macne dhirta qayb kamida uu leeyahay geedka la dhaho duurka duurka laamihiisa mid kamida oo dhuuban laamaha dhuuban uu leeyahay ayaa la dhahaa xood waana dhuuban yahayo caruurta isla dhacda arigana way la dhacaan marka ay yar yar yihiin caruurtu marka xood baa la dhahaa waxa kale oo loo isticmaali karaa hadii la sii sifeeyo xoodan wax soo rogan oo soo godan ayaa la dhahaa waa xoodan yahay waa soo xoodan yahay waa xoodnaan handab hadii la idin kada leeyahay qalooc waxaas oo dhan waxay sameynayaan hal macne laakiin meelaha kala galayaan baa kala bedelnaanaya oo meelo kala duwan noqonaya marka waxaynu haddana qaadanaynaa uudi oo xaadi wadato xuube ahayd maxaynu ku darnaa waxaynu ku dareennaa inaynu sameeyo macnayn rabnaa waxaynu ku darno wuxuuna ku darno inuu inoo sameeyo macna rabnaa waxaynu ku darnay daa oo kale sidii ku hore baynu ugu darnay marka daa ku darno maxaa meesha ka soo baxaya xuud buu noqday xuud waa libaax badeedka libaax badeedka baxuud la dhaha halka waxa inuu ku dhamaaday shaqalkii dheeraa oo xaq la socoto oo shibana xagga dambe laga raaciyay si ay macna inuu ku sameeyo oo inuu jumlad la akhri karo ay noqoto waxaynu haddana qaadanaynaa iyadoo shaqal gaaban xaadi oo shaqal gaaban wadata oo yana aynu sidaas oo kale uga dhigeyno jumlooyin la macna sameeya waxaynu niri ha xi xo xu sidaas u dhawaaqayno ahaa markii hore oo la isku daray shaqalka iyo shibanaha shaqalka gaaban iyo shibanaha xaada marka wuxuu noqonayaa oo inu oran karnaa markaynu xa soo qaadano kaligeeda xa oo wadata dhawaaqeedu waa sidoo ahaa aadina oo dhawaaqa saas u ahaa labadii waa iskaalmaysteen marka isla xa bay noqdeen isku hal dhawaaq bay lahaayeen markii horeba oo labaduba baa meesha dhawaaqa aaday wadaagaan marka xa marka aynu ku darno xa baynu waxaynu ku dareennaa xaraf inaynu xarafkan ku dareennaa inuu anfaco weeyaan ya inuu anfaco weeyaan waxaynu ku darnay xad xad waa magac xuduud buu la macnayaa xuduud xad xuduud buu la macnayaa waxaynu qaadanaynaa xarafka kale ee xe waa inaynu wax ku darnaa macna inoo sameeya macnuhu inoo sameynayo xeb baynu ku dar marka lagu daro xeb macna ma sameyn laakiin waa inay wax macna ku sameeya lagu dara si macna buuxa u sameeyso waxaynu oran karnaa xeexeb xe labaxa oo kale xa kale ku darnay xa marka lagu daro xex macna ma sameyn maxay marka noqonaysaa in laga dhigo
wax kale loo sameeyo xeeb ba iyo baan ku dar kale muxuu noqday xeeb macnu marka sameeyo macnaha uu sameeyo muxuu yahay marka wuxuu yahay awrta marka la rarayo oo heryada la saaro awrta waxa la saaraa rar kala duwan rarka la saarayo markay geediga yahay oo reerku meesha ka guurayo rarka la saaro waxa loo qaybiyaa aqalka sare oo rarka ah iyo heryada baa loo kala qaybiyaa heryada waa inta awrka ku dhegan oo xargaha loogu xiro isaga laftiisa heryada lafteeda ayaa rarka lagu dul xirxiraa marka heryada waxay leedahay marka la isku soo laabo meela iskaga laabmaan oo gacanta la gelin karo reerku markuu guur alaabta yar iyo lagu rito oo sida marka alaabta guriga marka tiga istaago kabaha caruurtu ka tagta iyo mooyaha iyo tibta iyo waxyaabaha islaamu markii reerku guurayo meesha ku hara bay sii gashadaan marka waxa la dhahaa xeeb meesha waa meel jeeb oo kala noqonaysa inaan sawirkii awrka qaybta dambe ku soo saari doono si fiican idin ka faaloodaan ku baan rabaa insha Allah si aad uga faa'iideystaan oo dhaqankana aad wax uga fahantaan xeeb waa isagana sifihiisu waa sida waxaanu soo qaadanaynaa marka xayo sidee bay macna inuu ku samayn karaan marka xaraf lagu daro waxaanu ku darnay la oo kale xil buu noqday xil maxay tahay marka xil waa sifa way xil waa sifahaas macnaheedu yahay qofka ninkii dareen leh ayaa xil dhibaa xilku waa waxa qofka dareenkiisa xumaanta iyo samaanta u kala saari kara oo xumaanta ku diidi karo qofkaas xil dhaha xil qabeen wax la dhaho baa jira yani waa qof wanaaga mar walba dhinaca wanaaga xumaanta diidaya ayaa sifaha qaata qof xun ma qaato xil ma qaado xil waa mas'uuliyad bay asal ka timi kelmadu mas'uuliyad qofan mas'uuliyad qaadi karin xilkas maaha macnawiya xilkas waxa soo dhamiyada ka farcamayaan oo furuuca marka haddana waxaanu soo qaadanaynaa iyadoo oo la socota waynu xaraf ku darnaa xarafku si macna inuu ku sameeyo waxa kan macna u noqoto xarafka saddexaad wax kordhiyo baleena ka raba haduu inoo kordhin waayo waa inaanu wax ku kordhin kara waa inaanu ku darsanaa si aanu ogaano inta uu waxtarkiisu yahay marka jumladu ay isqaadato maxaa la dhahaa marka waa horta saddex xaraf baynu ku eegeynaa inuu ahaado shaqalkan iyo shibanaha wada socda waa inaanu shibana kaliya ku darnaa marka hore waxaanu ku darnaa kale ga marka lagu daro maxaa soo baxay xog waa macne weyn buu xambaarsan yahay waa qofka xog waa sir ama macluumaad sir wax qarsoona oo la qarinayay oo qof kaliya gacanta ku jira xogtu taasa la dhahaa xog dheeraada la helay xog baa la hayaa xogta hebel baa haya waxyaabaha soo dhan eriga waa fahmaysaa macnaheedu marka inuu yahay wax la qarinayo oo sirriyana waxaanu haddana isticmaalaynaa ereygii ahaa xu xaraf waynu ku darsanaa soo macnaheedu ku sameeyo xaad iyo uud xul la baynu ku darsanaa xul baynu noqoto xul macnayaal badan bay samaysaa iyadu maaha sida kuwa kan faqadka ah oo goonida u taagan waa halka macna sameeyo kuwa macnaha badan sameeyo kamid tahay xul waxa lagu macnayn karaa oo kamida macnayaasheeda magool maxay tahay isla iyada magool waa waxa ashyaada marka ama waxa ama dad ama nool iyo nool waxay doonto ahaatee ugu fiican cad magool xoolo magool inta badan waxa muhiimka ah la dhahaa ba magool loo isticmaalaa xul marka beeriyatan laba meel kala duwan bay galayaan laakiin macna weyn waa isku mid waxa kale oo kamid ah xul
meel waralka xul toga xul toga waxani waxa soo kaleeto xulis meel la sii marayo oo la raacayo kalena waa loo isticmaalaa xulid baa la dhahaa wuu xulay amar markuu yahayna xul war meesha xul toga xul bay noqonaysaa marka inuu macnayaal badan inoo sameeyo waa muhiim marka casharkeena maanta insha Allah bidnillaahi kariim wuxuu inoo joogayaa xarafka xa oo aynu jumlada gelinay shaqalkii iyo shibanihi gaadoodii kuwii gaabnaa iyo kuwii dheeraaba wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh